dawladda fariin baan u dirayaa waxaan leeyahay madaxweyne 5 sano oo dib la'aan ah oo raaxo ah oo wanaagsan baa Puntland soo haysay oo aadan wax dhiba ku soo arag laakiin ninka ku ka dambeeya dhib badan buu arkayaa oo la hubo sidaas darteed waxaan codsi ugu dirayaa si wanaagsan oo cadaalad ah oo hawlyarida uu ku joogay intuu meesha joogay ah inuu kaga tago oo ku maamulo xilliga doorashada guddiga khilaafaadka inuu noqdo mid musharaxiinta odayaasha isimada aan ilaahdo waliba iyo dawladdu isla qaataan isla og yihiin ay iskula qanacsan yihiin cidda la keenayo waa in la keenaa dad bulshadu ku qanacsan tahay waa in la keenaa dad bulshadu ay bidayso cadaalad ay bidayso inay yihiin dad xaqaaniyiina ay yihiin kuwa bulshada fiqa ku leh oo bulshada markii la arko hebel miyaha hebel wuxuu soo saaro kulay waddankaana khiyaani maayo reerna khiyaani maayo qofna khiyaani maayo la yidhaahdo way buuxaan way joogaan yay khalad noqon yaan si mistake loo fahmin yaan dhib aan jirin la abuurin waxaan leeyahay waa inay sidaas noqotaa oo madaxweynuhu guddiga khilaafaadka marka la xulayo uu noqdaa paramount wax ugu sarreeya oo cid walba ka tala bixiso maanta DMI